نبي نوح عليه السلام wiilkiisu rabay inuu badbaadiyo sida waalidiintu ay u rabaan ilmahooda inay badbaadiyaan wuxuu ku yiri marka yaa bunayar kab macana wala takun maca alkaafiriin aabe soo fuul doonta badbaadada muslimiinta ku soo biir dadka laa ilaaha illa allah ku soo biir kana fogow dadka diiday ilaahay marka iyada waxay ahayd mar hirarka iyo tsunamida waxa la yiraahdo iyo hirar waaweyn ay dhinacooda ka imanayeen gadaal horay kormeel walba ay ka imanayeen sidii ilaahay quraanka ku yiri fafatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir quraanka ilaahay ku sheegay wiilkan dhalinyarada marka wuxuu qaatay aabihii inuu ka aqoon badan yahay oo nabi ahaa waa markuu leeyahay marka saawi ila jabalin ya'simuni min al-ma' aabi waxba ii sheegin buurtaasaan fuulaya waana qaasida la subad baadiyo أبي وحكله مركا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أبي اسم بدبادين كرتيد شاكدنا الروايات معها إلهي هدونا كون حريصا وسنكو بدبادين أبي اسم بدبادين كرتيد ماشي مركا الله مريو إلهي وحير وحال بينهما الموج فكان من المغرقين بيه بدوينتي سنامدي هيراركي باكو يمي ساسو خدنتي سوغو أركا يويلكي سو قال لما خدنتي dhalinyaradu waxay moodaan inay ka aqoon badan yihiin waalidkood mar walba la hadlo ilaahay awlaadta xifdiyo